الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى ولا ليال سيدين مقليني خطبتنا waxaan isku xusuusinaynay arin aad iyo aad ay u tahay waqtigan iyo maanta kale inaynu xusuusino arintaas oo naxariista iyo isku naxariisashada inaynu xusuusino oo waqtigeeda aynu taaganahay ayaa walaalayaal aynu ka hadlaynay qofku waxa weeye naxariis in laga helo oo uu dareemo dhibaatooyinka iyo waxa weeyaan xanuunka dadka kala haysta oo u damqado oo iskarab taago dareenka inuu yeesho oo wuxuu u tari karayo uu taro ayaa la yiraahdaa weeyaan naxariista waa dhaqan ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku sifeeyay anbiyadii wanaagsaneed uu noo soo diray ودغن إلهي سبحانه وتعالى كسفي ددك مؤمنين تا انت ساكهر وصفه إلهي سبحانه وتعالى كسفي إنه نحريسي سوى بلاران تاهي إنه أدومدي سوى نحريسه ودغن إلهي سبحانه وتعالى يصفه سيجار النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو كسفي أو حويان دغن كيسي كمدها إلهي والرحمن وأنا الرحيم الدنيا آخرة دومديسة عد ولبط وحي متيستي سقا يا ونحريسنا يا قال يا إسلام بأن حريسي كوتشوغا الدنيا آخرنا مؤمنين تيو إلهي سبحانه وتعالى سقارة ونحريسنا يا إلهي هاي نقدقوا كويا نحريسي سكاقدين ولا ليال نحريس إلهي سبحانه وتعالى يا أبو ري سيد النبي نوشي عليه الصلاة والسلام وحو رسول كله حديث صحيحة إلهي مركي والسماوات كي يارلده أبو ري بغل رحمن بغل نحريسات بو أبو ري وحو يمد ولبا يدق ميسو يعني سماوات كي يارلده إلهي سبحانه وتعالى مد كليا أيو أرلده دقي oo khalqigu ay isku naxariisanayaan hooyadu ilmaheeda ugu naxariisanaya shimbirtu waxa weeyaan marka dhalaankeeda ugu naxariisanaysa hatta marka waxa weeyaan baalka marka waxa weeye duur joogtu ay isku cadfaysaa isku naxariisanay ilaahay isku naxariis isku galiyay 99 ka kalena ilaahay subxaanahu wa ta'aala aakhira ayuu dib ugu dhigay adoomadiisa maalinta adduunyada la soo laaban ilaahay kii adduunyada yaalay aakhira ta 99 ka uu geynaya naxariista ballaaran ayaa inoo dambaysa hal mid baa adduunyada ilaahay u soo dejiyo naxariista inuu arkayno ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu markaa ka dhigay sida markay tahay rususha ilaahay soo diray nabi maxamed ilaahay ku sifeeyay wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin نحريس عالمين كادو تايبا لغو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء إلهي سودري سلابي هاي قرآنك إلهي سبحانه وتعالى نحريس بو كشيغي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين بوكسين يا نحريس ويا هاي مؤمنين تا أي إلهي قرآنك كسفي رسول كان عليه الصلاة والسلام سيقار بالمؤمنين الرؤوف الرحيم أي إلهي كشيغي sida markay tahay nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam ilaahay naxariisa ku sheegay dadkii uu tarbiyadeeyayna dad naxariistu ay ka soo ifbaxday oo dhaqankooda ay noqotay ayay ahayd saxaabadii nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam sida daraadeed ayaa waxay caan ku ahaayeen isku naxariisasho dhaxdooda iyo khalqiga kaleba inay u naxariistaan qofka naar laga badbaadinayo dacwad loo sheegay naxariis ayay markaa ku badbaadinayeen ka gaajaysan haday wax u tarayaan ka buka haday caawinayaan
كداوعة هذا وحق ونيان سلاس بيكو أين حريص أياكو كعنيسي رضوان الله عليه سلا درادد أي إلهي سبحانه وتعالى كشاقي يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص dadkii ku soo hijrootay reer sare waxa lagu sifeeyay inay jecel yihiin oo naftooda ay u hurayaan oo yar aanay ka helahayn qalbigooda inay ka dareemaan waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay waayo Ilaahay baa ka ilaaliyay waxa bukhliga la yiraahdo oo qulubtooda ka saaray Umar bin Khattab hadaynu tusaale u soo qaadano intaanu islaami waxa lagu tilmaamo dadkii ugu adadka inuu kamid ahaa indhihiisu aanay qoyaan dareemi jirin qalafsanaan iyo hadal adag uu lahaa laakiin markii uu islaamay islaamkii ayaa bedelay dhaqankiisii ka dhigay mid naxariis badan mid oohin badan mid damqasho badan la tilmaamo yani waxa weeye xarig la soo haybaa la moodi jiray calaamada ay ku sameysay ilmada indhihiisa ka dareeraysa labadiisa dhaban waxa kaga sii darnayd markii mas'uuliyadda loo dhiibay inuu culays sii dareemay oo markuu khudbadda aysa soo taago aanu wadi jirin oo hin awgeed markuu sidaadadka tuki aan codkiisa la maqli jirin oo hinta qalbigiisa ka baxaysa waxa laga soo sheegay siradiisii wanaagsaneyd in maalin maalmaha kamida uu la hadlay nin kamida waxa weeyaan dadkii adoomada ah ee la xoreeyay ee u shaqeynayay la joogay soo ku yiri hebelow aslan baa loo jiray aslan ma saxata habeenkii sagoo yaabo biirha waan seexda siir anigu saddex habeen ma seexan saddex habeen indhahaygu ismay arag qaban maxaa ku dhacay maxamed baa haysatay gaara isagay noo sheegay wax wardada ka gaxeeyay wuxuu yiri waxa weeyaan wallahi ma nimtu muddo 3 ayyam limaada wuxuu yiri faqad ja'ala Allah fi 'unuqi إلهي وحو يسوع قارته الأرملة قبل الله قدين تي أن قودية أم بمصروفان هيسن والمسكين قفك مسكين كاي وحكو فلان هيسن والشيخ الكبير وذي وين الدعدها علة الشوقة يو العجوز واليتيم قفك وين يو قفك عقانك انت أبو إلهي قارته يسوع dadka mas'uuliyadooda qaaday sideebay hurdo ugu imanaysa bal maanta taay walaalayaal iyo waaqiceena aynu eegno iyo mas'uuliyadaheena dadka qaaday dareenkaasi ma ku wada jira Umar bin Khattab ثالث هذه الامه qofkii saddexaad buu ahaa hurdada waxa u diiday dadkaas uu ka fikiraayo sidee u noolaan lahaayeen sidee wax u heli lahaayeen dadka mas'uuliyadda maanta la jecel yahay lagu wada yaacayo ee la isku wada dilaayo ee la isku markaa wada nacbaaday waxaad ogaataa dadka xuquuqdooda inaad qaadayso kamaata argaysa ku gaajoosan iyo kamiiga jiifa iyo ka haraadka u dhimanaya dad baa mas'uuliyadooda qaaday dad baa yidhi waxbaan idin macaanayna waxbaan idin qabanayna qaar kalena ima kale anaga sida wax ka dhigi doona walaalayaal waa ayaan daro mas'uuliyadda in sida loo jeclaado wallahi wax laga baqo weeyaan wax laga baqo weeye mas'uuliyadda maanta la isku wada dilayo waxa ka sii daran dadka maanta waxa weeye haraadka u wada naftu u hayso in la siyaasadeeyo oo siyaasad laga dhigto oo maanta aad u fiirsato waaqiceena aad moodo waxa weeyaan dadkii mas'uuliyadda xukuumadda difaac bay ku jiraan qoladii mucaaridkuna hujuum bay ku jiraan iyo weerar
shacabkiina wuu ku dhex dhimanaya يعني waxa weeye hadii wax la qabanayo ninka wax qabanaya waxa looga baahan yahay wax badan inuu qabto meelo badan oo dayacan baa jirta laakiin in laga faa'iideysto shacabkii laga dhigto wax maanta waxa weeyaan la isku tuurtuuro oo kanina waxa weeyaan ma waan qaban adna ma qaban ana wax sinayadu maxay wax u sii weyday walaalayaal maanta ma joogto maanta waxa loo baahan yahay dad gacmaha is qabsada dad badbaadiya dadka dhimanaya xoolaha biyaha la taaba maanta inuu baahana uma baahnin wax walba siyaasad laga dayo wax walba in umada lagu sii kala fogeeyo wax walba in markaa wax naxariis Ilaahay naga fogaanayso ay sabab u noqoto wax walba umada ku qaaliyoobeen oo dabka shidanahayn oo meel ay ku ganacsadaan aan ahayn oo dhibti meel walba ay ka gaadhay ayaa maanta walaalayaal wax laga deeya taa Umar bin Khattab ka waramayay waa tii aynu maanta tifiyada ka daawanaynay islaantii yaani waxa weeyaan hadalkeedii iyo dareenkeedu dadka wada taabtay iyo kuwa badan ee la ogeyn ee guryaha laaban ee meel ay u baxaan garan la kuwa weeyaan ku Umar bin Khattab Allah hurdada ay diideen inaan saaxdo laakiin waxa weeyaan ummadan Ilaahay baa kala xisaabinaya subhanahu wa ta'ala walaalayaal waxaan u baahanahay inaynu isku naxariisano oo waxa weeyaan Umar bin Khattab taa u diiday maanta inay dad ka soo mas'uuliyad maanta haya tu sare iyo tu dhaxay tu hoosaba ay naxariisaas waxa weeyaan la dareemo waxa kamida walaalayaal naxariista loo baahay adoomadu inay isku naxariistaan in qofka hadii uu dheregsan yahay uu ka warhayo inta hareeriisa ku gaajaysan inta qaraabadiisa haraadan inta waxa weeyaan wax u tirisnaysa inuu markaa u naxariisto inta waxa weeyaan xanuunsan inta dhakhtarada jiifta in walba laga warhayo Ilaahay wuxuu ku sheegay dadka muuminiinta iyo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad rasuulullah Nabi Muhammad inuu rasuulkii Ilaahay والذين معه كوا معيسى وصحابتي يعد كسته وقالت منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحماء أشداء على الكفار رحماء بينهم أشداء على الكفار كوا قال كوا عدد مؤمنين تلون حريص بدن تاوي ينين دحلنا نسكن حريصنا قال دنا ينكوات كان أيام الدويد magaaladeena dhabe waxa uu raxlaynaysay nin Ingiriis ay ictiraaf noo raadinaya shalayna waxa hadashay tii magaaladeena joogtay lahayd safirad baan ahay oo dadkii inagoo aynu isku dili gaadhnay ee la qisaasay ayaa leedahay maxaa loo qisaasaya kaafirada halkan joogta ee la safirad baan ahay ee wixii shareecadeena Ilaahay nam amray markaynu fulinay inale maxaa u sameeynaysan miyaanay mutaysaneen naga baxoon dhaaf dhiirhaniya maxay noo diiday maxaa bahday naga saaray maxay noo haysaa maxay noo tartay wajigeeda dhabka waa ka Ingiriis bay matasha qisaaskaynu sameeynay baleed maxaa sameeynaysaa inaynu isdilay doonaysaa de haddayna is qisaasino ka qof inaga dilaynaan dilin maxaynu sameeynaa sallallahu waa safirad inaynu dhiirana loo baahan leeyahay hadana shariicadeeda ixtiraamahayn iyo go'aan kaga iyo waxaan loogu gaarnay naga kuma doonayne macuniya dhul bay noo kala haysaa walaalayaal waxa loo baahan Ilaahay inuu raali gelino Ilaahay inuu raali gelo khalqigiisa isaga inoo duleynaya haddaynu gaalo raali ka hasho ka doono haddaynu gaalo ka doono inay wax weeyaan waxay noo hayaan Ilaahay bay nagu ciqaabaya subhanahu wa ta'ala ما وحنا ترى وينك هرات كدمانينه ما يريجك ناقضان ما يبركله ناقضان دور شيء إنه وحبك كفايدين أي معلول بكيفنا محاك قبوا وحوجا قبوا يدين والله كاسة هيدين قدر ريجك هيدين قدر هيدين حنان دامم هيدين دسا وحموقده ومضى ياركته إلهي سبحانه وتعالى الله قبقه إلهي نحريسه الله جرهديو نحريسه إلهي نقول شيء نقول عايزكون نحريسنا haddaynu inagu isku naxariisano cidna uma baahanayno inteena inagu filaano Ilaahay noo barakayn doona subhanahu wa ta'ala
إلهي وحد ويديسنا سبحانه وتعالى إنه دنبجينا ضعفه كي والدكينا ضعفه ثم صلوا وسلموا من أمرت بالصلاة والسلام عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي الله عن خلفاء الأربعة وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك كنت غفارا اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم اسق العباد والبلاد يا رب العالمين اللهم اسق البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب يا رب العالمين اللهم إن بالبهائم والناس والبلاد والعباد ما لا نشكو إلا إليك يا رب العالمين إلهي بين ويديسنا سبحانه وتعالى إنه دبت إيو حنونك إيو هراتك إلهي ومديسه وكساره إلهي وحن ويديسنا نعد كلينا نوباهن إلهي تابين ويديسنا إلهي عد كسنك في الله إلهي وينقو ويرسليا أنك هراتا أيه نقول دينا يعني إلهي شرق الجسير إنه فولينه إلهي ونقا في الله إلهي ونقا في الله إلهي نحرسنا لك ويديسنا أنا مرتكون لها حولها هراتا يددك هراتا يكون بيهلا إلهي أديك في الله كره إلهي أديك مالك برينا إلهنا نحرسه إلهنا نحرسه إلهي وددك يكدك ويسكن نحرسه مدحيا ميشيا معارض بإلهي وقلوب تودا يسكن كان إلهي ودنا كليه نو ودا جيدي إلهي تابين ويديسنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وصلى الله على سيدنا محمد وأقم الصلاة